caawa inaad nagala qayb qaadato maasantahay haddaad waqti yar haysato waxaan jeclaan lahayn bal inaad historygaaga iyo waxoogaa ma garanaysaa kolley dad badan way ka dheregsan yihiin safiya ciday tahay iyo waxa weeyaan xilligay ganacsigan bilowday iyo halkay joogtay iyo informationkeega haddana dad badan oo cusub caawa waxay doonayaan inay bartaan safiya soo dhawaad safiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحن سلام يا ولا لها مرتدى وحن سلام يا ليدر كيغا قاليغا ما شاء الله تبارك جانس كيسي انا ولا له لو ذاك هيستوري كيغا كومن ليدر عثمان يدما ليدر انت كل والد السلام يا aad baad u maasan tahay walaalo anaguna waanu ka qaadnay sharaf inoo tahay walaashay safka xaaji waxaad ku nooshahay gobolka Minnesota ayaad ku nooshahay Mareykanka runtii ganacsigan muddaad bilowday oo isku dhawaan xilliyeedii aan bilaabay aan wada bilownay baan maleynaya isku marinayna wada bilownay waxaad samaysay taariikh cajiib ah oo gabar Soomaaliyeed ama qof kale aanu sameyn muddo 6 bilood gudaheeda marka bal insha Allah historygaaga iyo businesskan iyo noloshaada kale saas ku waafajiso bal waxoogaa yar insha Allah walaal noo dulmar aniga magacayga waxaa la dhahaa Safiya waxaan ku magac dheerahay Safka Xaaji waxaan deganahay dalka Mareykanka qaasatan magaalada Minnesota ma sha Allah tabaarak waxaan ahay walaalaha nasiibka u yeeshay in ay ka faa'iideystaan company-gan ee Ilaahay waafajiyay ma sha Allah tabaarak waxaan ahay hooyo family oo caruur haysata waxaan ahay hooyo shaqaysata 50 hour per week Monday to Friday haddana opportunity u heshay inay company-gan ka gaarto heerarkiisa sarsare iyo waliba hadiyadihiisa qaaliga ahna ku guuleysatay ma sha Allah tabaarak alxamdulillah taas Ilaahay xaqiisa mahad Ilaahay ay ka ahaatay aniga company-gan waxaan ku soo biiray 2019 bishii February ma sha Allah tabaarak markii hore waxaan ahaa customer badan caaw qolka igu jira walaalo customerkayga ahaa waxaan ka ganacsan jiray productiga ma sha Allah tabaarak noocyadiisa kala duwan especially weight loss-ka oo aan anigu aad miisaanka iskaga riday 92 pound iga dhacday ma sha Allah tabaarak waxyaabahan ka faa'iideystay waxaa kamid ah vitaminadaas oo family ahaan aan uga faa'iideysanay kadibna waxaa opportunity u helay inaan ka sii faa'iideysto inaan business-kan ku soo xiro walaalo Soomaaliyeed oo anigoo kala ah oo u baahan inay ka faa'iideystaan walaalahaas oo maanta ma sha Allah tabaarak darajooyin aad u qurux badan ka gaaray waxaa ku jira managerin waxaa ku jira senior manager waxaa ku jira levelada kala duwan oo company-da inta ay maraan supervisor assistant manager and assistant supervisor ma sha Allah tabaarak ayay ka kooban yihiin teamkayga team aad u fara badan waaye company-gan wuxuu opportunity ku siinayaa 160 wadan inuu ka shaqeeyo 12 number ee ID-ga uu ku siiyay waxa kamid ahay walaalaha ka faa'iideystay inay wadamadaas ka faa'iideystaan oo ay commission-ka ka helaan ma sha Allah tabaarak company-gan waxaa looga jiraa darajada levelka senior manager oo ah levelka ka koreysa manager ma sha Allah waxaan bishii Maajo helay gaarigaygii koobaad ma sha Allah tabaarak caawa adinkaan idin la wadaagaa managerkayga leader Ismaan iyo aniga bas ayaa og caawana waxaan xiray shalay gaarigaygii labaad ma sha Allah tabaarak ayaan shalay ku guuleystay oo ii xirmay ma sha Allah tabaarak kaliya leaderkayga aan la wadaaga adinkaan idin la wadaaga caawa anoon teamkaygii wali u sheegin ما شاء الله ورينا سبرايز لوغا ديغا تيم كايغا عاو يا عاو سبرايز ما نوغا دغتي ها سبرايز عاو waxaa يا سلام gaarigii labaad aan ku guuleystay ma sha Allah tabaarak taasoo ay ah farxad aad u qaali ah waxaan caawa qualify u ahay ma sha Allah tabaarak dalxiisyadii ugu waaweynaa taasoo iyadana shuruudihii la iiga baahnaa aan gabagabeeyo maanta ma sha Allah tabaarak oo shuruudihii hortaagnaa maanta ii dhamaadeen alxamdulillah alshukr iyagana ma sha Allah tabaarak taasina waxay ii tahay goolkaygii labaad marka waxaan rabaa walaalaha inaan u sheego anigoo hooya intaasoo weekii shaqaynaya 50 hour xaqiiqadii busy ah
haddaan gaarigaygii koobaad helay kii labaad caawa aan helay dalxiisyadii hadda aan diyaar u ahay oo wax walbo la iiga baahnaa ay ii kumbuleed garoobeen maxaad adigu samayn kartaa sideed adiga uga faa'iidaysan kartaa maxaa ku hagaagi kara maasha allahu tabaarak commissionka ii soo dhacaa wuxuu iiga soo dhacayaa ugu yaraan 7 wadan ayaa commission iiga imaadaa maasha allahu tabaarak jaaga aan qaataahi wuxuu ka fara badan yahay jaaga 50 hour aan weekii sameeyaa goolo la taaban karo ayaan ka gaaray kambanigan waxyaabaha aan kaga guuleystay ma ahan wax xataa cayiman oo la soo qaban karo 1 2 3 ah ma ahan waxyaabo la taaban karo oo xataa aabaha iyo hooyada iyo caruurta wada shaqeeya aysan dhaqaale ahaan say ku soo saaraan ay aad u adag tahay ayaan kambanigan anigoo hooya oo 50 hour shaqeynaya aan ka gaaray maasha allahu tabaarak marka alxamdulilah shukrataas ilaahay xaqiisa ka ahaatay maalin un baa ilaahay hadiyadaani si lama filaana ii siiyay adigana caawe hadiyada kuu soo gashay oo aad haysataa sideed adiga uga faa'iideysan kartaa sideed jeceshahay kambanigan inaad uga faa'iideysatay sidaan aniga uga faa'iideystay walaalkay Cismaan uga faa'iideystay walaalo badan ay uga faa'iideysteen taariikhda igu cajiibka badan aan idin sheegaya kambanigan markaan rabay inaan ku soo biiro habeenada kamid ah layla soo share gareeyay waxaan iri kambanigan inta aadan sign gareynin bal YouTube-da iyo Google-ka iyo gal magaciisiyaan meel kasta ku qoray markaas waxa ii soo baxday gabaraan aad u jecelahay hadda inaan dhageysto mar walbo oo motivation ah oon jeclahay leebelada kambaniga ay ka gaartay calaamadu ay iigu qoran tahay darbigaas ayaan dhageystay gabadhaasi waxay ahayd gabar ayadu iyo ninkeedu ay askari ahaayeen xilligaas caruurteeda caruur kamid ah ayaa field tripka waa taqaanaa wadankan markay cunugaagu oo field trip inuu aado ama camp oo raba inuu tago lacaga u baahan tahay qarasha u baahan tahay haduusan dhaqaalaha ku saamaxmin habeenkaas adigana dismoral aan noqonay cunugaaguna dismoral aan noqonaysaa gabadhaas habeenkaasi waa seexan weysay murugo badan baa ku dhacday shaqooyin aad u badan ayay raadisay forever waxay noqotay xidigii koobaad ee u soo baxay isla habeenkaas ayay saangaraysan waxayna ka gaartay maanta adduunka goolaha aan la taaban karo milyanka lacagta ka sarreysa dadkii sanadka hela waay waa barta ii calaamadaysan adiga marka maxaa ku calaamadaysan walaalkay iyo walaasheeyow maxaa ku calaamadaysan maxaad qorshaysatay sidee doonaysaa inaad noloshaada uga faa'iideysato waad ogtahay hal sano markaan shaqeyno Mareykanka $1 kambaniga ugu fiican baa 75 noogu daro kambaniga ugu fiican ayaa 75 noogu daro anigoo assistant supervisor ah ayaan 453 qaatay markaasaan haddana $1,228 qaatay xagee ka dhici kartaa kambani weligaaba shaqay inta ku siiya lacagtaas haddana lacagtaas ku kordhinayo maantana dee maba sheegi karaba kamaba hadli karo inaan hadlana maba rababa kaliya waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo maasha allah walaalkay Cismaana idinkugu filan inuu accountkiisa idin tuso inaan anigana maasha allah tabaarak aan idin tuso hadda wax kale idinma kordhinayso marqaatigii waad haysataan sidee doonaysaa inaad uga faa'iideysato maxaa ku qorshaysan shaqaalanimo sidee rabtaa inaad uga baxdo والله هل مالين ما شقيين يا هدي تيدا تاتنا وجوجويلها لكن شقة أنا هيو أيا واحد تها شقة أن almost 20 years كشقينا يو وأنا ما أنت كتجي كرنو قلبي يقول رقمنا يقف ويلا وعدان هو يلا عمله وأنا كتجي كرن أنا لجوجا مركا opportunity أد وقالي يواي ولا شيء بهذا قولك كوجرت وحي قلت له محاك ولا ما تلافك أنا قبتي والله وايد نجعلها لك time is money كلمة أهل يقعد على time is money هذا على إذن الله والله busy أنا عاو إن أنا وقتي هي سنة time is money أيها مريسا هل كي second أكو دافع 1 second أكو دافع وعمري جاجي يجانس كاجي أكو دافع kambaniga marka aad xisaabtaasi ka baranayso oo time is money
aad ku ogaanayso sideed uga faa'iideysan kartaa, sideed waqtigaaga u management garaysan kartaa, sideed uga dhigan kartaa waqtigaaga 24 hours-ka waqti xisaaban haddii aad nooshahay ee aad ku xisaabtamayso imisa jeeg ku qabsoomayso, imisa aad wax qabsan kartaa, imisa saacadood aad meeshaas gelin kartaa, sideed uga faa'iideysan kartaa. iga raalli ahaada haddaan warka idinku dheereeyey, waa idinka apologize garaynayaa, soo dhawaadaan idin leeyahay badan waad ku mahadsantihiin. runtii inaad maqlaysaan rajaynayaa. waad maqlaysaa sama walaalo? haa liidar Cismaan, maasha allah walaalaad ku mahadsantahay. waxaan ku leenahay hambalyo. thank you brother. miyuudka iska saar walaalayaal. waxaan leenahay walaasheena hambalyo. waa ku daynaynaa ma sheekadu noo wadadka qurxe. ها ما شاء الله تبارك الله ولا شيء مركو راينو ما شاء الله لدانو مر لبادنا انه همبليا لدانو ما شاء الله ولا صفية waxaan ku yar weydiinayaa su'aalo kooban adigoo kulay dareemay waqtigu aad ugu yar yahay dhamaanteen inagu wadiyahay inuu maanta aynu marayna saacadii ugu dambeeyay bisha July horta hambaliyaan gaarigii labaad waxaad noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed marka laga yimaado walaasheen Aisha ee gaarigaasi la hadda achieve garaysa ayaad noqonaysaa xagga gabdhaha ma sha Allah tabarakallah. runtii farxad ma qiyaasi karno dareenkayga iyo farxadayada alxamdulillah baan leenahay ma sha Allah hambaliyo. Safiya walaalo inagu waxaynu walaalownay oo aynu isbaranay sanadkan bilowgiisii waqtigaas oo runtii aad noqotay manager aad noqotay waa sanadkan bilowgiisii bay ahayd. muddada kadib check ba shirkadii ku yeelato shirkadii share bad ku yeelatay 6 bilood waqtigaagii baad ka faa'iideysatay. kelmadda time is money ayaad ficil u bedeshay ma sha Allah tabarakallah. waxa kuu suura galay dalxiiskii, waxa kuu suura galay gaarigii koobaad, waxa kuu suura galay gaarigii labaad. waxaad maanta soo saartay dad aad u fara badan, team badan ma lahayn, 2 qof oo supervisor ah ayaa waqtiga malaha kuu soo baxayay saan xasuusto saan filayo. marka bal insha Allah 6 bilood imisa qof oo team ah ayaa ku abuurmay, kuwa adiga ka daba abuurmay iyo kuwa ka sii abuurmay marka guud ahaan aad qiyaasto. ma sha Allah walaashaas leefalada ay kala joogaan bal si yar oo samaraysa su'aashaas nooga jawaab walaalo. muddo 6 bilood gudaheed businesskaagu siduu u faafay. ma sha Allah tabaarak walaalkay Cismaan, aniga bishii December 22keedii ayaan waxaan qaatay darajada manager ma sha Allah tabaarak. isla bishaas teamkii aan saangareeyay maanta waa senior manager ma sha Allah tabaarak. waxayna ku kala guuleysteen labadoodii gaari ee ugu horeeyay, labadii gabdhood ee aniga level ahaan igu soo xigay, Faadumo iyo Khadiijo ma sha Allah tabaarak. Faadumo haddeer ayay xirtay gaarigii, Khadiijana isla caawaba waa u dhamaanaysaa biidnillaahi alkariim ma sha Allah. teamka aniga igu hoos qorani waa ilaa 100 iyo dhowr qofood ma sha Allah tabaarak. team gaarayo ayaa aniga i hoos yimaado oo aan intaas 6 bilood ah dadkii aan ku soo diray company-ga ma sha Allah tabaarak. dadkaas waxay ka kooban yihiin senior manager, waxay ka kooban yihiin managereen, waxay ka kooban yihiin assistant manager, supervisor iyo assistant supervisor. teamkaygu waa team aad u badan ma sha Allah tabaarak oo u shaqo badan. teamkaygu waxay aad iyo aad uga faa'iideystaan alaabta productiga. waxaan caan ku nahay oo nala ku yaqaanaa dad iyaga dhan waxaan nahay company-ga waxay ugu dacaayadeeyaan oo teamkii dudayaa soo yaacay, dad yaacaya, team durbadiba levelka bedelo, productiga aad u iibiyo, businesskoodu aad u faafay baan nahay ee dibadahana aad ugu faafay oo aad u shaqo badan ma sha Allah tabaarak. that is why anaga teamkayga waxay ka commission badan yihiin cid walba oo shaqaysaahay. clear assistant supervisor hadduu yahay commission uu yaqaano ayuu qaadanaya oo aan supervisoriintu qaadanin. taasna waxay keenaysaa horumarka iyo dadaalka badan ee aan samaynayno, ayadoo weliba ay noo dheer tahay productiga aan iibinayno. qofka ugu yari 8cc ayuu bishii ku xisaabtamaa inuu iibiyo ma sha Allah tabaarak. anigee teamkaygaba 8cc dadka cusub sida ugu sharaxi lahayd imisa u dhigantaa qiyaastii? 8cc labadii cc markay qofku cusub tahay waa $459 dalka Mareykanka markay qofku cusub tahay. markay levelka bedeshana waa $320
markay ay noqoto supervisor waa 300 iyo cost manager markay noqotona waa 200 iyo jajab ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني assistant supervisor ولا $100 وي ما شاء الله ولا لا همبليو سو كله good news warka wanaagsan ee ah walaashay Khadija iyo walaashay Faadima oo iyagu labaduba teamkaaga ah ee dadkii bishan sanadkan gudihiisa aad qortay waliba ah in gaarigoogii koobaad ay ku guuleysteen iyadana waa bishaaro weyn aad baan kugu hambalyeynaa adiga iyo teamkaagaba waxaan ku leenahay ma sha Allah runtii leader ayaa tahay cajiib ah ku dayasho badan leh hooyooyinka iyo walaalaheen hablaheena caaw ku dhageysanayo dhanba role model u tahay insha Allah waxaan rajeynaynaa iyaguna inay dariiqaad martay ay maraan oo ay kugu soo daydaan wanaaga waa la iskaga daydaa fursadahana ma sha Allah runtii waa qofku jecel qof fursadii uu ka faa'iideystay noloshiisa anfacday kaaga faa'iideynayo kula war sidan aniga ay anfacdo ii shaqeysay oo ku guuleystay adiguna dad doonto waad samayn kartaa kaalay soo maro kaalay raac qofku leh waa qof runtii wax wanaagsan kula doonaya marka waqtiga qaaliga aad baan kaga mahad celinaynaa waxaan rajeynaynaa guuleynta ka sii waaweyn oo ka sii ballaaran runtii inaad sanadka dambana aynu insha Allah iska wareysano dee waka sky is the limit insha Allah ما شاء الله thank you ليدر عثمان ما شاء الله waxa kala caawa ii soo baxday laba manager laba assistant manager waxa ii soo baxday afar supervisor caawa ma sha Allah tabaarak oo iyagana aasidno ما شاء الله taasna waxaan u bishaareynaa walaalahay tomorrow waxa laga yaabaa teamkana inaad noqotaan oo adinkana maalin maalmaha kamid ah adinkoo managereen ah habeenada kamid ah sidaas oo kale iraado oo hebla caawa ii soo baxa oo idinku faano marka soo dhawaada Allah yaciisak Allah yaciisak Allah yaciisak walaashin Safiya aad baa u mahadsantahay